Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay waxay ku tallaabsanaysay horumar muuqda oo dhanka adeegyada caafimaadka iyadoo bulshada loo soo kordhinayay adeegyo casri ah oo aan hore dalka loogu heli jirin. Maanta, Somali Sudanese Specialized Hospital wuxuu hormuud u yahay horumarkaasi. Isbitaalku wuxuu horeyba u bixin jiray adeegyada daweynta iyo dhaawacyada culculus ee lafaha, neerfaha, laf-dhabarta iyo xanuunada seedaha, kala-goosyada iyo murqaha. Hadda si loo dhammaystiro daryeelka bukaanka wuxuu soo kordhiyay qayb physiotherapy ah oo xarun cusub oo lagu heli karo adeeg muhiim u ah soo kabashada, xoojinta murqaha iyo soo celinta dhaqdhaqaaqa jirka. Qaybtan cusub waxaa laga furay kasoo horjeedka xarunta isbitaalka, taas oo meesha ka saaraysa in qofku meel fog uu u safro si uu u helo daryeelka uu u baahan yahay. Waa goob si heer caalami ah loo diyaariyay, lehna naqshad casri ah, nadaafad heer sare ah iyo qalab cusub oo u dhigma kuwa caalamka. Waxaa ka howlgalaya dhakhaatiir iyo khubaro ku takhasusay physiotherapy-ga oo u diyaar ah inay bukaanka siiyaan daryeel xirfad leh, dabacsan, isla markaana degdeg u soo celinaya awoodooda dhaqdhaqaaq. Goobtu runtii waa mid aad u qurux badan, u qalabaysan si cajiib ah, una dhisan si waafaqsan istaandaryada caalamiga ah, taasoo ka dhigan in bulshada Soomaaliyeed aysan dibad u aadi doonin adeeg uu halkan dalka gudihiisa si sharaf leh ugu heli karo. Isbitaalka Somali Sudanese